ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyay faqri idinka biqi maayo waxaanse idinka baqaa waa xoolo ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalameen oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolihii la ysku qabtay waxaan isleeyahay yurub maanta way islaami lahayd haddaan muslimiinta xoola isku qaban dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jebiyey balaat shuhadaa sababtiisu maxay ahayd iyagoo ku cabay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhanaysa khariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay gaaladii xagga dambe ka wareegto khariimadii baa la gurtay ciidankiiba intuu ka baxay safkii koowaad ee dagaalka ku jiray buu dib u noqday ilaa iyaga aakhirkii la tirtiray haniimay ku jabeen balaat shuhadaa faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba haniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray ciidanku hogaaminayay kan haniimay ku jabeen haniimadii baa la isku qabtay waxa dhacay sayfadiin ciidankiisii inuu iskala baxay jalaaladiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo in badan buu ka daba tegey in badan buu isticdaafsaday in badan buu bariyey laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba anna madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo idina walaalkii baa disheen unbuu isa soo taago wax kaleba waa mari waayeen uu iska tegey isaga iyo ciidankiisii markuu ka baxay ciidankii niyad jab baa ku soo kornay iyagii oo isqabqabsaday dagaal dhexdoodii ka dhacay muslimiintii oo badh noqotay may dhicin labadii guulood ee waaweynaaye muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan Genghis Khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday isagii baa soo duulay awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay hadda ra'su dawla almagoliya ciidan wataa soo socda muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagiis hayaan macrakadii ugu adkaydna way ku soo socotaa safkii muslimiinta khalkhal baa galay jalaaladiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin ciidankiisii buu kaxaystay uu guuraysnaa Genghis Khanna waa ka soo daba guuray waa la istaba galay arrintii aabihii ku dhacday oo kala dhacday marka jalaaladiin waa sii guuraa Genghis Khanna waa ka daba guuraa laba ciidan oo istaba socda kaabul baa la iskala yimi ghazna la isla soo dhaafay jalaaladiin Genghis Khanna magaalooyinka kuma weecdo ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa ninkana ciidankiisii waa soo waday sidii la isula soo socday Afghanistan waa la iskala dhamaaday Pakistan baa la isla soo galay Pakistan baa la iskala soo dhamaaday Sind baa la isla tegay nahru Sind wabigan Pakistan mara Sind mara ayuu yimi Jalaaluddin iyo ciidankiisii wata doonyaba wuu waayay dani kute ragina ishaleeshaan maradii doonye la waayo meel u gudbaanay jirin Genghis Khanna waqti iskama lumin tuulana ma furan cidna ma boobin cid kalena ma laynin ciidankan buu ku daba jiraa Genghis Khanna waa Jalaaluddin meel buu la hadlay ciidamuu dirtay doonyaa loo doonay doonyaha intii loogu maqnaa ayuu Genghis Khanna soo gaadhay waxay noqotay in la iskalo haatan dani waa dagaal ku tahe waa la isu jilib dhiga maantii koowaad baa la isgalay waa la isku madhay maalin labaadii baa la isgalay waa la isgumaaday maalin saddexaadii baa la isgalay waa la isxasuuqay lama kala tegin dagaalkii wuu adkaada halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay gaaladiina dad badani ka dhintay muslimiinta raggii wax hogaaminayay malik khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonayay xoolaha halkan buu ku dhintay ma calfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin malik khaan halkaas buu ku baxay maalin afraadii dagaalku
wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo bal laysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo. hudnadaa wakhtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo, intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen. jalaaladiin ciidankiisii markaa wuu rartay, webigu ka tallaabay, doonyihiina xagga shishu u kaxeeyey. jenkis khan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo ma hayo. laakiin ma aladii xadath, maxaa dhacay marka kan? awal dowla alkhawaarzimiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisaa joogo, muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadiyeen. muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waynagii ka soo warrannay warkoodii. haatan muslimiintii xagga hoose jirtay ciidamadoodii webiga sand bay ka tallaabeen. waxaa isku soo hadhay jenkis khan iyo ciidankiisii iyo maatadii muslimiinta iyo magaalooyinkii muslimiinta iyo wixii aan ciidan ku dambaynin. jenkis khan marka dib buu soo noqday. markuu dib u soo noqdayna wuxuu bilaabay magaaladii koowaad ee lagu jebiyey inuu qabto ghazna. ghaznuu yimi. ghazna wuxuu la simay dhulka. wixii dad joogay waa gumaaday. wixii daar ku taallay waa dumiyey. wax walba waa baabi'iyey. ibnulahir raxmat ullaahi calayhi markuu tacliiqi calayhi markuu leeyahay wuxuu ka tegey buu yidhi khaawiyatun calaa curuushiha kaan lam tagna bilams. weedhaasuu isticmaalaya. magaaladaa wuxuu ka baxay jenkis khan iyadoo dunsan, cidna ku noolayn, meel la degayba aan u ekayn. hore ayuu uga socda. meel dhexaba markuu marayo jalaaluddiin ciyaalkiisi iyo reerkiisi iyo guur ayuu hela. waa qabtay iyana waa bireeyey. boqorkan sind ka tallaabay, nahru sind, aabbihiiba de waa tii la qabtay, hooyadii iyo ciyaalkiisii beriguu baxsaday. kana markuu baxsaday waxaa la qabtay intuu dhalayna dhegtaa dhiigga loo daray, iyana waa la bireeyey. haddaan iska soo koobo warka, waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe. jenkis khan afghanistan oo dhan buu qabsaday. afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalamulislaami bay ka mid tahy. waa dhul bay yidhaahdaan koreeya, buuraleeya, ninka qabsadaa jayna uu ku duuli karo, indiya uu ku duuli karo, ciraaq iyo xagga ku duuli karo, qawqaas uu ku duuli karo. waa eshiya halka laga xukumo bay yidhaahdaan. eshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato, rushiya waa duuli, jina waa duuli, indiya waa duuli, ciraaq iyo iiraan waa duuli, dhan kasta waad u duuli kartaa bay dhahaan. wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha afghanistan la yidhaahdo. waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana, laakiin ciidamadoodii labada goor jebiyey iyana warkoodii waan soo mar. jenkis khan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray mongolia, china, kuriya, myanmar, waxaa barigaas oo dhan soo tiri, nepal, wixii xaggaa lagu sheegi jiro o dhan soo tiri, uu soo wada qabsaday. kadibna turkmanistan, afghanistan, iiraan inteeda bari inta ugu badan leh, azerbaijan, armeniya, georgia, intaa hal san uu ku qabta. taarikhyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsadaa, laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin. horena looma hayo, dibna looma hayo. intuu dilay taariikhda ma soo marin, lama hayo. magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila. dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo. walaa second world war, dagaal labaadee duniyeed iyo ku ka horreeya hal sannadood intuu qof ku dilay 617 hijriyada lama hayo. sidaa ogeed buu ibnu alahir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaؤulaaءi tatar
ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه، فهذه طائفة تخرج من حدود الصين ولا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينيا ويجاورون العراق من ناحية همدان. وتالله لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها.